dowladnimadeedna u qawooto waa in la helo doorasho xalaal ah oo qof waliba u qayb galo waa in la helo doorasho xalaal oo qof iyo cod haddii la helo doorasho xalaal oo qof iyo cod dowladnimadeedna quwad bay yeelan madaxdeedna quwad bay yeelan laakiin intaynu doorasho dadban ku jirno wali dowladnimadeedna waa naaqsanta ogaadana horumar bulsho walbi waxay ku dhisan tahay markii bulshadu ay xuquuqda u wada siman yihiin dastuuriga ah markay u wada siman yihiin oo la yiraaho haweenku waxbarashada waa inay ka qayb galaan caafimaadka waa inay ka qayb galaan siyaasadda waa inay ka qayb galaan laakiin waxaan rabnaa haween aanu shiilanay inaanu dooranno afayeen noo noqdaan danahaya ka tarjumaan noo qareema meesha tala lagu gaaray in ay fariistaan dhalinyarada waxay tahay hadii oo macnaha fursad loo siiyo inay helaan qof iyo cod meesha waxa ka baxayo oo dhaqameedyaashii ad hore aan u tagi jirnay si oo macnaha kursiyaas noo geeyaan markaas dhalinyaradii wuxuu noqonayaa dhalinyaro isku dheelitiran oo qof walba is xoogiisa iyo kartidiisa iyo maskaxdiisa maxaa dhigi jiray meesha ku tagay